Number 1. Number 2. guurdoon ayaan ahaa geed walbaba istaago galangool ku soo maray guud ahaan dalka oo idil gada iyo hargeysiyo muqdishaan ka goobo inantaan gacloodiyo gabadhii waan soo helay markaan geed fadhiistee aan isiri ka geelbixi gar ilaahay maahee gaf baa guudka lay suray gabooyaa cad kuu galay midgaan gees baxaa tahay mana geysid gabadhee goohoon baa leeyidhi goodis iyo dil iyo dhimo wale inaan ku gowricin shan baan madaxa kuu gelin ayaan gurigii uga imid geyigaan ku noolaa duul ii garbeeyiyo geeshkumaan lahayno qof walbaa ku jira gambad gaygi go'ay iyo gurkaygi baaba'ay guulaan u sheegto u bandhigay gartaydii Soomaali gacal iyo gankabay wadaagtee maxaa lay ganiifo gees laygu bixiyaa gorgortaha hawiye iyo giblantaasi daarood gabanada ogaadeen gashaantida isaaqiyo dirta guud ahaanteed raxanweynta gees dega gabdhaha way siisaan guurka waad wadaagtaan geela way iska bixisaan gowsha way isku fidisaan garnaqsigu xaq weeye maxaa layga dhigay gees micirkaan ka soo go'ay ma garawaan xun baan ahay xageen idinka soo gal gugumiyi libaax iyo miyaan good abees ahay idin guraayo idin guba miyaan ahay xaramkii nin gubay iyo magaalkan la simanahay sida inaan gaf weyn galay maxaa la igu xiray gaar gabanadayda diido gabadhay ma doontide guuleed ku daaye yaad guursan doontaa gabanadayda diido gabadhay ma doontide gacalow ku daaye yaad guursan doontaa kaaga gargaara ilaahay kaaga gargaara stitch samir muuji inaan samirta muhiim stitch waxaan ku sugannahay guriga caabi jaamac raage jaamac humbur ku magac dheer ku yaala gudaha degmada Gurceel gaar ahaan xaafadda Waabari sidoo kale waxaa gasna goobta nagula sugan aadan jaamac caabi raage oo ah wiil Soomaaliyeed kuna sugan gudaha degmada Gurceel oo aan la yeelan doono wareysi dhinacyo badan taabanaya oo khuseeya xaaladda soo daristay dhankooda nololeed iyo sidoo kale xaaladda guud ee caafimaad ay ku nool yihiinba inta aanan falanqayn qoyskani waxa ay la kulmeen dhacdo aad cajiib u ah oo ah in la faquuqay aadan jaamac caabi raage oo gabar ku guursaday gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadibna aabihiis markii uu si galiina uga tagay qoyska wiilkiisu gabadha ka guursaday ay ku yiraahdeen erayo aan ku haboonayn oo ka mid ahayd inay dhaheen gabadha uma qalanto wiilkaada taas oo u dhiganta in ay faquuq u taagayeen qoyskan Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waa dhacdo dhif iyo naadir ah inay ka dhacdo gudaha dalka laakiin hadda waxa ay ka dhacday gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud qoyska faquuqa lagu tilmaamay ayaa inoo suurta gashay inaan soo booqno hoyga ay ka degan yihiin degmada Gurceel oo kula yeelno wareysi taabanaya xaaladaasi laga soo sheegay qoyskani waxaan ugu horeyntii wareysiga ku bilaabi doonaa jaamac caabi raage oo halkaan ku sugan oo ah wiilka gabadha guursaday kadibna markii sida galiinka ah isaga iyo aabihiis oo isla socda ay u tageen qoyskii gabadha ay ka guursadeenna dhacdada ay kala kulmeen ayaan kala sheekaysanayaa aadan ku soo dhawow warbaahinta aadan caabi jaamaca liiraa waa gartay aadan waxaan halkaan kugu imaanay inaan maqalnay dhacdo ah gabar aad doonteen adiga aabaha kadibna gabadhii la idin diiday arrinta maxaa ka jira arrintaas waa jirtaa gabadhiina waa noola diiday sooriyadina waa laga qaadan waayay xoogaa yaroo ficilana waa lagu sameeyay waa gartay marka maadaama sooriyadina la inka qaadan waayay ficilna la inku sameeyo ficilaad ka dhawaajis maxay ahayd sababta markii aad iswarstaan adiga aab wuxuu yiri waa ka soo tagnay asaga u laabamayno yiri hadii saas ay jirto marka ka soo tagnana waa ka soo aamusna marka adoogayo ka itimaha noo yimid wax aan muslimka aan sheegi karin uu sheegay marka waa ka aamusnay waana uu naga tagay waa gartay markaasi adogu idin yimid ma wuxuu in kala hadlayay xaalad deganaan ah oo in la dejiyo ah mise wuxuu in kala hadlayay xaalad si qasaysay jawiga aad ku jirtaa gabadheeda saad u guursato wuri aniga waa ii hanjabay hanjabaadiisi marka maxaa kamid ah haddaad qabto wuri ada god inaad u hoyay god inaad u hoyay oo taas u dhigantay inaan ku dilay hay had kuwa qabiilkaada had u guurso weydo wuri waa gartay marka aadan maadaama gabadhay adiga aad is guursateen gabadhay adiga raalli baa iska ahaydeen Soomaa oo si adinka baa is jeclaado isla indhahayga waa ga jeclaad waa gartay marka adiga marka maxaa kula soo darsay maadaama aad xaaladaas la kulantay anigana waa iska aamusa lagu yiraahday qof oo
oo macnaha aad loo faquuqa aad tahay alla aad kala kulantay waa iska aamusay mana nacay timin afkaygan ka xirtay waa gartay gabadhii hadda miyay joogtaa mise Kenya jirtaa gabadhii Kenya maxaa loo waday sababtu maxay tahay gabadhayna midgaan uma rabnaa liiri aniga xoogay wuxuuma la sameeyay waa gartay marka gabadhii hadda Kenya ku sugantaa Kenya ku jirtaa Kenya joogtaa ku soo wacdaa lamba habarteeda habeen hore soo wacday waa la hadlay waa imaaha ay tiri markay ka dibtay hadda lambarkeeda lama heli karay hooyo markaas maxay kala hadlaysay maamada gabadha dhashay waxay tiri waa heshiihayna say ii tiri lambarkeedii ima soo wacay daraadtii ku horeeyay ugu dambeeyay hooyadu marka ayaduna hanjibaaday wadaa hadda marka maxaad jeclaan lahayd inaad bulshada la wadaagto waxa ku daawanaya bulshadii Soomaaliyeed oo dal iyo dibad meel walba ay joogaan ku daawanaya maxaad jeclaan lahayd oo u jeedin lahayd bulshada Soomaaliyeed islaanteedaan weli lahayaan ka rabaa inay kala shaqeeyaan igala shaqeeyaan Kenya joogtaa abartu qaxootiga ku tahay waana lii diidan yahay kuuri duqayeeyo halkan joogtana xoogay ficil xumay ugu sameeyay markaan aan akmar indhahay ugu gubay wiil la dhashay ila dagaalay bis oo gabadheena saad u goy kartaa waa gartay manasara liira hadda qurceel ku sugan yahay isagana dagaal gacan ka dagaal uu soo toorey halkaas garabka iga saaray lama dagaalin waa ii xirneed aniga shib waa ka aamusay waxaan risay diga la dagaalin dhacdadaas marka xagee ku qabsatay mudiga mise magaalada ay ugu qabsatay magaalada ay ugu qabsatay agteeda meeshan degmada gadaasheeda ay ugu qabsatay waa gartay adoogan soo wacay saas ay ugu dhacday hal dagaalin ay marka saas aan nahay annaka marka faquuqaasi miyo hore u dhacay mise waa mid hadda cusub wiligeedna waa lagu hayay faquuqaas oo la idin leeyahay mid ma geedin gabadhayda hadda waa tan dadku waa isdhex galay walaalow anoo kaligeeya oo qof ila soconaan waxaan u imid duqii awoowaha u ahaa gabadha waa gartay aabaheed ma uusa joogo waa gartay markaan u imid waxaan idhi waa aan toosiyey waxaan idhi war ii waran waxa dhacay ma maqashay waa maqlay wuri niyow galiimaan ka wadaa samafalaan ka wadaa waxaan ka wadaa sidii Soomaalida qaynuunkeedu ahay inaad ila hadasho aan rabaa markaan idhi wuxuu yiri hadal hadda ma furna hadal hadda ma furna dad wada hadlay ama wax kala qaatay waa dad heshiisay waa gartay dad wada hadla ama wax kala qaata waa dad heshiisay waa gartay heshiisna maahin nabadna maahino waa gartay qaab anigu hadeer aan wax kaaga qaado ma garanayo waa gartay taas waxa uu igu daray gabadhu ma xirna gabadhu ma xirna uu igu daray waa gartay gabadhu ma xirna markuu yiri waxaan tegay wiilkaan u imid waxaan wadaadkii gabadha xiray ii keen waa gartay wadaadkii gabadha xiray aan ii keenay siyaadna waan u yeeray odagii waan u yeeray waxaan idhi bal sheeqow wixii aad xirta hadday baadil ahaayeen duurka ilaahayaan mar ahay ii sheegan oo sharcada aysan waafaqsanayn wadaadka gabadha xiray culummada Gurceel joogta wadaadka ugu intiraafka badan waa gartay marka adiga aad raadinayso marka wadaadka waxa kugu kalifayay inaad aabahaas aad sheeqi gabadha xiray raadisay inaan qanciyo aan u raadinay qoyska gabadha waa gartay wuxuu yiri wadaadkii waa la hadlay wuxuu yiri siyaad macnaheedu qoway gabadhaadii heblaheed ninkii xiray aan ahayo waa gartay la xidid ninka dhacdadaas kale mar u kurgaleynaa tanaan ka dhamaanaynaa marka maadaama aad tiraahday sharci islaamna kala geymaayo oo dad walaalaha wada dhashabaana maxay kugu jawaabeen qoyskaas maxay ugu jawaabayaan gabadhiiba waa dirnayaalay gabadhii xagee loo diray Kenya u dirnayaalay Kenya ku suganta hay marka aaba Soomaaliyeed da ahaan imse baa jirta kontonaan jira aniga kontonkaasana marka xageed ku nooleed kontonkaasana Gurceelaan ku dhashay Gurceelaad ku dhalatay wararkaana waa maqli jiray laakiin nin baraf karaya ma ahayno askarigan ahaayeen waa gartay ciidamadii Maxamed Siyaad Barre aan ahaa wax baraf karayna iyo wax yaani qadarina oo kelmadan aan qulaay ma jirto marka muddo dheer aad Gurceel ku sugnayd muddo dheer aan ku sugnayd waa dabcan wiilkaana waa ku dhashtaa filay waa ku dhashaa intaas aad ku soo aragtay ayadoo culummadii u qaadayda sharciga soo istaag
mid waa lagu xoogay waa dhacdadii saddexaad waaye mid waa lagu xoogay oo dadkan adaristaa ah midna waa midaas ninku isku xiro sheeqaaho oo laga fura meeshaan xeer ku haystaa waa gartay waka marka tan waa tii saddexaad tan waa tii saddexaad adayna ku qabsato anay qabsat waxa ila soo dirsay anigu kelmadaha ay sheegayaan dadkan saddex niman u aqaan waa gartay saddexda nin aan u aqaan ninka oo dariiqa oo taagan laamiga oo naagaha xooga oo dadka wixiisa cuna oo dadka dhibaateeya midkaan dhalaan u aqaanan ninka ilaahay inta hanti siiyey karfantii afarta waareed aan looga gadayn ee culummadu iska wareysanahay aanu gadna ay leeyihiin midkaan dhalaan u aqaanan ninka ilaahay wejigiisa ku ceeboobana midkaan dhalaan u aqaanan ma garad marka walaale arrintan waxaan u bandhigayaa ummadda aqoonta leh ama culimo diinka ama dadka barofesorada ama dadka islaamnimada xabiibka u ah aan u bandhiga dabcan intii aan waraysiga ku guda jirnay waxaa isbedelay jawiga aabe jaamac raage oo aabba Soomaaliyeed ah wuxuu la ilmeeyay dhacdada ku dhacda xanuunkeeda iyo sidoo kaleete sida faquuqa loogu sameeyay intii aan waraysiga ku guda jiray wiilka iyo aabihiisba waxa ay sheegeen inay arkeen in hanjabaad loo gudbiyo loo dhaartay la yiraahday noloshiina qatar la gelinaya kasokow aabuhu waxa uu aad ula calool xumooday ama dhibaya saad u jeedaan badawadayaal waa xaaladda oo kula kulmay gudaha degmada Tani Gurceel ee ah in qoys Soomaaliyeed lagu tilmaamo gabadheena ma guursan kartaan ma xiran kartaan erayadaasi oo noqday mid aabahani Soomaaliyeed oo la ilmeeyo ama qulubtiisa ama qalbiyanba oo ku ooyay qalbiga adiga daawanaya ama midka Soomaaliyeed ee gaariga muuqaalkaanba waxaan inkugu soo gudbinaynaa inaad aabaha Soomaaliyeed aad u jeedaan sida xaaladiisu ay tahayba inaad u gurmataan oo aad uga hilisaan midka aaminsan inuu ka weyn yahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa weyn qof bini aadan ah waa qof la abuuray oo bini aadan ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caabudo loogu talagalay ma ahan in midka Soomaaliyeed ama walaalka muslimka ah ee dhibaatadu haysato lagu liido waxa lagu horumar lagu gaari karaa iskaashina lagu gaari karaa diinteena macaan ee suubanna inoo sheegaysa in aan midkeena liita caawino si aan ugu baxsano maalinta yoomul qiyaamo oo ogtihiin in xaalad adag la galayo maalintaasna wax walba oo samayso ama aad maalintaas la timaadina aysan ku suurtagelaynin waxa aad ku badbaadaysaa ay tahay camalka suuban ee samaysatay inta aad ifka joogto aabahani Soomaaliyeed aad u jeedaan walaalaha Soomaaliyeed waxa uu ku dhiban yahay gudaha degmada Gurceel waxa uu u baahan yahay gurmad inaad garab istaagtaan midka dulmiga ka shaqaysiinaya ee ka oysiinayana aad uga hilisaan haddii ay isku hiliyaan walaalaha muslimiinta ah ayna iscaawiyaan waxay noqonaysaa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqraya adduunba ay ku liibaanaan walaal waxaan in ka codsanayaa inaad muuqaalka gaarsiisaan walaalaha Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee ku sugan dunida dacaladeeda ee ka damqanaya dulmiga iyo dulmi kalkaalka isu kaashada qoyskan Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha degmada Gurceel